kulan ay maalinimadii shalay isugu yimaadeen maamulka degmada Carmo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ahaa mid looga arrinsanayay sidii maamulka iyo bulshadu ay isaga kaashan lahaayeen bilicda deegaanka. kulankan ayaa waxyaabihii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in olole nadaafadeed oo aad u ballaaran laga sameeyo gudaha degmada Carmo, waxaana ololahaasi nadaafadeed uu si toos ah uga bilaabmay gudaha degmada Carmo maanta iyadoo ay ka qayb qaateen guud ahaan bulshada ku dhaqan degmada Carmo, waxaana xirnaa gebi ahaanba goobaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga. qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Carmo oo ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed ayaa u sheegay TV-ga Puntland in ay ku faraxsan yihiin ololaha nadaafadeed ee laga sameeyay degmada Carmo, waxaana ay hambalyo u direen maamulka degmada. degmadana waxa laga bilaabay olole nadaafadeed oo aad iyo aad dadkuna uga qayb qaateen. arrintaasuna arrin wanaagsan weey, horena loo qaban jiray. haddana waa la qabtay, degmadana aad baa maanta looga shaqeeyay. community-ga ku nool degmada Carmo waxaanu maanta u soo ambabaxnay صغير iyo kabiir culimo iyo isimaba inaanu magaalada nadaafadeeda ka qayb qaadano. waanu ku hawl jirnaa nadaafatuna waa nadaafatu nismin iimaan. nadaafadu waa iimaanka barkiis. sida laaligeed shacabka dhammaantood waxay u duuban yihiin inay magaalada nadaafadeeda ka shaqeeyaan. bilicduna waxay ku xiran tahay magaalooyinka nadaafada. waxaan Puntland oo dhan message u direynaa inay nadaafadeeda ka shaqeeyaan. waxaan u hambalyeynaa marka ugu horeysa gudoomiyaheena oo noogu deeqay baabuurta iyo shidaalka iyo hawsha nalana wada. aad iyo aad baan isaga nadaafineynaa. haddana mid aan deynayno maaha, waa mid aan mar walba ka hadlayno inaan qashinka iska gurno. maasha Allah si fiican baan ugu soo dhaweynaynaa intii ka soo shaqaysay. si fiican baan u soo dhaweynaa gudoomiyahana waa ku mahadinaynaa iyo intii ka soo shaqaysayba. qashinka nadiifta qashinka la xaaqo dushiyaashina waa la fasaxay. waxaan qashinka dhihi lahaa in nadaafada la koro dhalinyarada iyo dumarka qashinka kuraan. maanta waa maalin farxad leh nadaafadeed, waana soo dhaweynaynaa nadaafada iyo barnaamijyada dadka shaqeynaya, waana la shaqeynaynaa si fiican. waana uga mahad celinaynaa dadka ka shaqeynaya dhammaantood. dhalinyaradana waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan maamulka iyo dadka ka shaqeynaya waxyaalaha wanaagsan. gudoomiyaha degmada Carmo injineer Maxamed Cali Shire oo la hadlayay TV-ga dowladda Puntland ayaa shacabka degmada Carmo ugu hambaliyay sida quruxda badan ay uga qayb qaateen ololaha nadaafadeed ee maanta laga sameeyay degmada Carmo ee gobolka Bari. waxaan si weyn uga mahad celinayaa barnaamijkii nadaafadda ee maanta ka socday magaalada Carmo, taasoo loola gol lahaa in magaalada la nadiifiyo. runtii waxaa ka wada qayb qaatay shacab weynaha qaybihiisa kala duwan, hadday tahay arday, hadday tahay shaqaalaha maamulka, hadday tahay ururka dhalinyarada, kan haweenka, odayaasha, dadweynaha. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. waxaana mar kasta aan ku baraarujinayaa in ay sidaasoo kale uga qayb qaataan nadaafadda. maxaa yeelay nadaafaddu waa shay weyn. nebiguna wuxuu ku tilmaamay inay tahay iimaanka barkii. marka in magaalada la nadiifsado, shawaaricdeeda iyo wadooyinkeeda iyo muuqaalkeeda iyo bilicdeeda in magaalada la soo saaro waa shay waajiba weeye. waana shay la doonayo in ay ka wada qayb qaataan dadka reer Carmo iyo reer Puntland oo dhan magaalooyinkeena nadaafadeeda in lagu dadaalo. ayaan aad iyo aad uga mahad celinayaa una dhiiri gelinaya. sidaa daraadeed waxa inoo ballan ah inaynu mar kasta soo celcelinno dadweynuhu inuu asbuucii mar ama bishii 2 goor campaign-ka la qaado. aad iyo aad baan ugu baraarujinayaa, waana ka mahad celinayaa shaqadii wanaagsanayd ee la qabtay maantay. gaadiidka ayaa marka ay qashinkaasi qaadaan waxa ay geynayeen goob ka baxsan degmada Carmo, waxaana halkaasi diyaar ku ahaa xubno ka tirsan bulshada oo dab qabadsiinaya qashinkaasi si uusan ugu faafin deegaanka intiisa kale. Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal, TV-ga dowladda Puntland, degmada Carmo.